waddankan amni la heli maayo ilaa doorasho toosa ka dhacda waad dareemi kartaan hadda waqtiga ugu dambeeyay 2016 odayaashii ergada iyo xildhibaanada kala shaqaynaya gudiyada doorashooyinka inta la wacay ayaa waxaa la yidhi dembi baad gasheen waana lidinka cafiyey doorasho dadban haddaan aadno waxaa la filan kara dhammaantiin waa dareemi kartaan qodobka kale ugu muhiimsan waxaasi oo dhan ka muhiimsan xilliga doorashada dadban 2016 la aaday waddankan sharci doorasho ma lahayn waddanka hadda wuxuu leeyahay sharci doorasho oo baarlamaanka ansixiyey madaxweynaha uu saxiixay meel ay ku qoran tahay doorasho dadban in la aaday ma jirto qodobka kale oo aan rabno in aan isxasuusino haykal dawladeeda dhisan baarlamaanka waa golihii sharci dejinta ama baarlamaanka waa sharci dejin qodobka 47 ayaa xaq u siinaya marxaladda hadda la marayo inaan anaga dhammaystirno wixii shuruuc ah oo doorashada lagu aadi lahaa ee isteedya iskama laha shaqo badan aan soo qabanay shaqada hadda noo harsan waa tan hadda gacantaan ku hayno oo ah wax ka bedelidda sharciga axsaabta siyaasadeed hal qodob aan rabaa inaan ku daro waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay leeyihiin degmooyinka iyo gobollada Soomaaliya codayn karo runaa idin sheega maanta waxaan idin sheegayaa magaalada Muqdisho haddii la yiraahdo doorasho dhacaysa xiise weyn ay u qabaan doorasho dhacaysa in la yiraahdo tirada meel yaani dadka codaynaya waa la yaabi doonaa waxaan rabnaa marka maskaxda aan gelino dastuurkaas iyo sharciga doorashooyinka ee baarlamaanka uu ansixiyey kan inaan ku socono aadan umahadsan taytalka dawladda waa la yaqaanaa kala sarreynta hay'adaha dawladda waa la yaqaanaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaa ku xiga waa golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka ku xiga marka saaxiibka anaga danihiisu aaday waxaan kaloo waliba aan ka digaynaa oo xildhibaanada aan uga digaynaa dawladnimadu waxay ku dhisan tahay protocol mar walba protocolkiina inaad ilaalisaan kuma qasbanid meel walba inaad fariisatid kuma qasbanid diyaarad walba inaad raacdid because waxaad xambaarsan tahay karaamadii iyo sharafkii aqalkan ayaa dhabarkaaga saaran marka xubin ka mid ah golaha shacabka baarlamaanka meel munaasab aan ahayn protocol aan lahayn markay ka soo muuqato ihaanay nagu tahay waxaan leenahay waa ku celinaynaa annagana ma matalayn waa maasantiin